dhacdadu meelo badan bay ahayd meelo badan oo sii mari doonana way noqon doontaa dad badan oo xataa uu ku cunay bahal baa jiray oo kolkii yacni dhacdo dadka la xasuuqo waqtiga ay naga tagaan ayaan dib ka aasi jiray oo qaar buu saa bahal ku cuni jiray markaas sidaas bay ahayd waxaan hadalkayga ku soo duuduubayaa markii meeshan dadka waa la isugu geeyey daacuun baa xataa dadkii ku dhacay waa la xero ooday muxuu haddaa la ka dhigo ilaa 50,000 oo neef oo ishkin iyo adhiba leh yaa wax dadka lagu dul cunay iyo wax bahal uu cunay iyo wax cudur uu laayey yaa intaba lahayd iyaduna markaas meeshan xoolihii saasay u dhammaadeen oo cuudkii saasuu u dhammaaday dadkaas aan la kala reebin culimo lahaa cuqalo lahaa caruur lahaa ciroolo lahaa cuudkiisina saa u dhintay ayaa lagu xasuuqay waxaan markaa idinka codsanayaa horena aan u codsan jiray in codkayga aad gaadhsiisaan meelaha ay khusayso ra-iisul wasaaraha muxuu ahay etoobiya abiy axmed madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa maxamed cumar iyo cid kasta ay khusayso waxaan ka codsanaynaa in naloo horkeeno cabdi iley iyo dadkii ka qayb qaatay in hay-adaha sharcigaa naloo horkeeno maxkamadda naloo horkeeno mana cafiyeyno waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad deegaanka iyo komishinka dib u heshiisiinta qaranka waxaanu codsanaynaa in aad noo gaadhsiisaan idinkuna waan idinka codsanaynaa gaar ahaan in naloo horkeeno dadkaas maxkamadda naloo horkeeno hay-adda cadaaladda muxuu naloo waafajiyo sharciga naloo horkeenaan yaan codsanaynaa inta haddaan ka gudbo waxaan hadalkayga ku darayaa oo kale buladari uun maaha xasuuqu meelo kale oon sii mari doono hoorahawd haddii alla ka dhigo siiden dhakaayu meelo ba aan sii mari doonana way jiraan kuwaana waan ku waqtigeeda waxaan laakiin aan ku darsanayaa codkayga maadaama oon jaanis hellay kuwa hadallo in sida mooyaha oo kale gunagado oo kale firmadow oo kale meel malqaqa oo kale dadkii sidanada oo kale gumaadku uu ku dhacay dhagax madow oo kale iyaguna in ay ka hadlaan oy sida muxuu ahaye haddii alla ka dhigo cadaalad raadiyaan oy u codsadaan sidaanu codsanay iyaguna waan insha allah iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay sidan oo kale ay u hadlaan baan ka codsanaynaa waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka iyo maamulka community-ka iyo gobolka iyo degmadaba isbedelkii intii ka dambeysay horumaro badan inaa laga qabtay qablaygan sida wadadan aan soo maray oo kale xafiiskii biyaha oo kale biyogelintii oo kale LLB xafiiskii xoolaha oo kale kii caafimaadka oo kale iskuulkii oo kale intaana waan uga ambalaasigii oo muxuu codsiyo aan u soo dhignay madaxweynaha oo isaguna si fiican uga jawaabay waan uga mahad celinaynaa iyagana horumarkaas isbedelka intii ka dambeysay waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo maamulka kabineedka heer degmo heer gobol heer degmo waan uga mahad celinaynaa waxaan kamid ahay odayaasha buladari qabalaha buladari sidaa darteed meeshan dhibaato badan baa nagu soo martay xasuuq badan baa nagu gaadhay waxaa dhacday markii dadka 200 iyo 24 ruux horta oo wax kabtan ku aasan iyo wax gaarkeena ku aasan waan ognahay dadka inta leeg dhaartii la dilay ee la wada aasay yaa haddana hal dhalaaral ma la yiri hal ruux hadduu ka maqnaa wax badan madax laga dhufo hal yoom kaliya ta ku imaad halka 400 oo qoys baa halka la soo deji